ku dareen dhex dheeraada dawladda Turkiga oo aan u jeedo reer kaarbid loo dhigay wax cusub waxaan aragnay Turkiga la tagay baan aragnay aad baad maasatay inta hadan kaga gudubno ururkiini iyo labadii urur ee isla socday waageen ay kala hadheen ka bacdina qoladan ay urur waxashay in ka bacdi idinki markaa ay noqotay haddana markaa idinku ma sii wadaysaan dadaalkiini ahaa inaad good governance iyo Soomaalinimadii iyo habkii inaad wadaan si fiican oo aad sidaad ugu banaan bixi jirteen dawladda hore federaalka iyo Itoobiya inaad kuwana ku banaan bixi doontaan runtii anagu principalkeena waxa iska ma kay bedelin waa gartay runtii waxa laga yaabaa dad badan oo ama nala ku arki jiray ama na taageersanaan jiray in lagu arko mantaqaana ay sheegay dawladda shariifka iyo ayaga horboodaya lagu arko taa macnaheedu ma ahan inay xumaadeen ama anagu xumaano dadku mar walba waa la isbedelaa politics waa la isbedelaa qofna hadda qof interest raadinaya dantiisa shakhsiga xagashay dadna principal Soomaaliyeed buu haystaa bay raadinayeen marka anagu ku banaan bixi mayno soona dhaweyn mayno waxyaabaha halkaan u nimidna waxa kamid ah oo runtii aan rabno inaan dadka runtii u dhaalino waxba aad noogu qasbay inaan media nimaan dadka u sheegno waxa dadku aad bay noo soo wacayeen war positionskiina noo sheega haddaad United Somali Diaspora tihiin positionkeena waxa weeye mar haddaanu nahay United Somali Diaspora Minnesota degan dawladii horena mucaarad ku ahaa kuna diidanaa wax badan dawladii hore tan anaga wax isuma ka dhaamaan wax difference ah oo hadda noo dhaaman ma jiro nabad ba keenin oo ka sii darta xamar waxyaabaha hadda dawladdan ay keento waxa kale oo ka sii mid ah oo aanan hore u aqoonin dadka inta la laayo inaan la sheegin oo hadda maagi hore idaacadaha laga sheekeyn jiray waa aad baa looga qaylin jiray maalintii day xamar waxa ku dhimatay intaas oo kuna qof ku dhimata oo ay laayaan African Unionka iyo dad la mid ah lagama hadlo wax dib u heshiisiin la dhaho socda cid heshiis leeyihiin iyo badihii waxba jiraan waxa intaas dheer baddi waaba sida la socotaan dawladdii waxay ku wada indha adeeg tahayba inay baddi saxiixdeen oo ay Kenya mataqaana heshiis waad nagu qabsateen ay tahay xoolihii dalka ma taqaana la dhoofinaya marka wax hadda cusub oo aan ahayn problem cusub oo hore aan u qaban jirin ganacsi hore aan u aqoon jirin nimankii hore inventory bay keeni jireen ciidamada Itoobiya keeni jireen malaha waxaan isiri barnaamijkii dadku ay aqoon jireen barnaamijka cusub inay dawladda la timaado oo balbadahana markan lagu dayo ayadana balbadaha lagu dayo marka arintaas anagu mowqifkaas aan ka taaganahay ma taageersanin ku mudaharaadi mayno runtii 9 bilood 8 bilood iyo 9 bilood waxay jirtay hadda dawladda jirta wax ay sameysay oo hadda ummadda Soomaaliyeed aan ka gadno ama aan u sheegno ma jirto marka dadkii ama taageerayaasheena ahaa ama mataqaana anaga nagu xirnaa oo United Somali Diaspora wax ka soo dhisay waxaan u sheegaynaa wax isbedelay oo aan idin sheegno oo Shariif sheegayo ma jiro laakiin maxamed aad u maasan meel marka loo arkeenin in ururkiin uu kala qaybsamay oo marka ay bateen qolada raacsan dawladdan Shariifka ay bateen waayo markii hore banaanbaxyo sameey jirteen xataa conventionka waxaad qaban jirteen marka qarashna lacag ururisaan bay noqotay oo dadka ama Ethiopian ku laayeen aad ku caawisaan ama haday noqoto laakiin hadda marka waxa jirteen aad leedahay un de afartii qofood ay ka soo hartay way iska aamusayaanoo ma taageersani kaliya la soo fadhiyaan laakiin se waagi hore action baa jiray marka hadda miyaan marka ururkiina loo arkay inuu badan yahay qaybtiisa badan ee xagga u jabtay si doonaan ba ugu jaban iyagu shaatiga doonaan ha qaataan ama hab diineed ha u raacaan ama hab qabiil ha u raacaan mid aan ka saxo horta oo anaga ururkeena urur lacag ururiya ma uusan ahayn oo cidna uma aan ururin jirin hay'ado kale sama falay waxa saajiri jiray laakiin anagu morally waa taageersaneen dadka muslimiinta ah oo dhibaataysan wax la taro arinta kale ah waad kala jabtay anaga ururkeena ma kala jabin United Somali Diaspora sidii bay u dhisan tahay laakiin waxa jira ururo badan oo Soomaaliyeed oo runtii na taageersanaan jiray oo aan isku موقف ahayn marka waa laga yaabaa in ururo qaarkood ay u arkaan in mataqaana Shariifka runtii waxna laga sheegin khaladaadka uu sameeyayna aan loo sheegin oo ha laga gaabsado ay tahay waxyaabaha marka anaga nagu kalifaya inaan positionkeena sheegno oo runtii waxyaabihii aan sameyn jirnay mudaharaadyadii waxaan sameyn jirnay runtii Itoobiya wadanka haysatay dadka aad gumaadaysay xogaa waxa difference uu jira yara laakiin difference ma jiro ma taqaana in
waa gartay maxamed aad baad maansantay inaan ku dheeraanay aan soo daadeen qaybta ugu dambeysay barnaamijka oo ahaa madaxweynaha hadda Minnesota ayuu nala jooga caawa sida aynu rajeynayno ururkiinina waxaad tidhaahdeen mana taageersanin mana raacsanin kuna banaan bixmeena sida aad sheegtay waayahay markaa maxaa sameyn ma guriyina iska joogi doonta ma joogi doonne message baan u gudbinaynaa fartiin baan u faraynaa runtii fartiinta aan faraynana waxay tahay madaxweyne Shariif wuxuu ahaa madaxweyne wuxuu ahaa leadership Soomaaliyeed oo soo baxay wixii lagu aaminay waxay ahaayeen hadalkiisii wanaagsanaa iyo wixii wanaagsanaa oo uu noo sheegi jiray waxaan marka anagu rabnaa inaan u sheegno anagu shakhsi ma taageersanin waxaan taageersanahay waa principle iyo system baan taageersanahay waxaan u sheegaynaa waxa uu hadda asaga ku jiro asaga iyo nimanka teamkiisa ay wadaan runtii maaha wax dan Soomaaliyeed ay ku jirto maahan wadankeeniina waxaad moodaa wax anaga gacanta hadda aan ku hayno maahan wadankeenii laba ajnabi baa isku haysta labada ajnabina kolley nimanna waa nimankan dagaalamayo sheegtay in buuraha iyo meelaha laga xukumo oo ayagaaba cadaystayba nimanna waa niman wada Cabdalla iyo Shariifku ay hogaaminayaan waa gartay taa hadda naga